السلام عليكم. وعليكم السلام دراستها. الحمد لله caafimaadka. ما شاء الله. والله runtii waxa waaye adoo ciyaaryahan national team hore u ahaa jiray adaarne micnaha oo iska arkin liskii waa dareemi kartaa sida noqonaysa iyo horta ciyaartooyda localka ah reasonka horyaalka ku maqnaa ciyaartooyda sabab mu ahayn isku dhac xiriir ka jiray awgiisa horyaalka oo micnaha u dhicin laakiin inta badan kooxaha wadanka way train gareynayeen oo ku train gareynaya kooxda because mar walba oo kooxaha ay ku qasbiyeen inay train so marka reasonkaas oo micnaha ciyaartooyda oo league laan ay u hayeen hore kubadda way isbedeshay ma fahanti hadda ciyaartooy badan oo wadanka banaankiisa ka imaan dad professional ah imaadaan oo Cabdisamed ka mid yahay Marani ku jiro ciyaartooy aad u fiican ee abal ku jiraan ciyaartooy fiican ay imaadeen oo wadanka wax badan oo ka saaciday sportska hadda wuu isbedelooyaa laakiin sportska mar walba hadda waxa waaye wadamada qaarkood Djibouti camal oo aad qualify waxa waaye group stage-kay soo aaday horumaray soo bisay waxa waaye Soomaaliya waa qualify ayadana waxa 1-0 ay badisay game-ka hore oo ka bacdi 0 game-ka hore 1-0 bas ka bacdi waxa waaye waa sida rabna ma noqon waan leeg badiyay soo kubadda istaabi leedahay waxa waaye hore loo soconaa marka marxaladooda waa laga soo gudbay ciyaartooy fiican ay imaaday ciyaartooy fiican oo wadanka imaaday marka ciyaartooy badan oo wadanka gudaha ka dheelaan oo fiican ay jiro marka hadii is helaan wax badan ee wadanka wax u qaban karaan horta ciyaartooy listiga horta ciyaartooy inta badan ma kala kasay qaarkood xulka isla matelnay oo waqti safarka Djibouti inta kale aan aqoon oo gooni u maleeyay listiga waxa ka bedelay waxa ku soo kordhiyay ma aqaan bas ciyaartooy inta badan laakiin hadaa qaran isla baxdina isla matashiin micnaha waxyaalo badan oo ka ogaan lahayd ciyaartooy badan oo sanadkan oo waxaa jira performance-gooda oo aad u sareeyay oo micnaha oo la og yahay xataa oo liiga waa cadar ka dhigay oo aad xataa og tahay oo micnaha oo la rabay micnaha in national team ka mid noqdaan micnaha reason in loo dhigo ma horyaalka ma dheelin ciyaartooydan micnaha ciyaartooydan reasonka horyaalku dheelin ciyaartooyda sabab mu ciyaartooyda maamulka sareeya jiro maamulkana xiriira u taliyo oo dhahay waqti hebel liiga bilaabana waqti hebel liigaas oo socona soo marka ciyaartooy season-ka hore fiicnaa oo micnaha oo jirta xataa micnaha oo safarka hore xataa oo Djibouti aadaynay oo ciyaartooy performance-gooda fiican yahay safarka oo aniga ku jira xataa aan soo celiyay bro bilaa sabab la'aan oo macalinka dooq macalinka waa ahayn laakiin xulashada oo macalinka oo la soo farageliyay waxay noqotay in anaga nan celiyo runtii waxyaalo oo muhiim ah jiro bro in laga hadlo u baahan waxa ka mid ah hadda macalinka hadda imaaday micnaha anaga horta oo nala soo xiriiray ani ahaan wala soo xiriiray wuxuu dhahay u diyaar garow camal inaa ka mid noqotid camal oo kaamka oo 6 bisha oo lagu xaroonayo Kenya bacdi isbedel dhacay listiya soo baxay macalinkii ka bacdi iguma soo laaban sabab jiro ogeed micnaha waxa muhiimka ah in laga hadlo u baahan waxa ka mid ah ciyaaryahan oo micnaha oo lala soo hadlay oo la dhahay isku diyaari 6 bisha kaam oo Kenya lagu xaroonayo oo ka bacdina lala hadlin micnaha isbedelkaas waxa waaye waa dareemi kartaa dhanka imaana waa dhanka oo federation-ka waa marka sanadka horena dhibaatadaas ciyaartooyda oo gudaha ka ciyaarto ay qabsatay waxa waaye waa Djibouti tagnay waan soo celiyay oo federation-ka ay dhibaatadaas ka jirtay federation-ka hore oo micnaha qofkii meesha u talinay marka hore gudoomiyihii hore uu ka tagay gudoomiyaasha imaaday iyo maamulkiisa waa ku faraxsaneen wax badan ay bedelayaan islaan haddana ayadii wali meesha wixii taagan ilaa hadda wax oo micnaha oo muuqdo ay bedelooyaan ma aragna bro marka ciyaartooy badan oo fiican oo qurba joog way jiraan oo wadanka wax u taray wadan kaliya maahan ciyaartooyda Soomaalida iyo ciyaartooyda qurba joog wadanka nin qof walba wax tar leh oo wadanka wax u qabanayo wadanku u baahan yahay iyo qaranka laakiin ciyaartooyda inay mudnaanta la siiyo qofkii u qalmo inuu ciyaaryahan national team u qalmo inuu matalo marka mudnaanta in la siiyo waa qof walba oo qaranka u qalmo inuu matalo marka aniga horta qaranka aniga iyo Maxamuud iyo Ahmed qaran 15 oo qualify matalo Ethiopia ku ciyaareen oo Nigeria u bixin Ahmed iyo Maxamuud way ogyihiin oo waxyaalo badan oo micnaha markaas jiray oo hadda ka soo gudubnay
marka waxyaalo badan waa soo marnay. Waxaan rajeynaynaa wax walba inay isbedelaan, laakiin wax walba oo hagaagsan oo loo baahan yahay inay isbedelaan 2022 waa lagu jiraa. صح 2022 oo ciyaartooyda reason kooxaha loogu dhigayo micnaha koox hebel inay ciyaartooydan u baxaan, ciyaartooydan labadan laga wado iyo saddexdan laga wado oo lagu lifaaqayo xiriirkii kooxaha isku dhacooda anaga wax ma naga qusay, laakiin wayna saameynaya anaga dismoraal ku noqonaya marka waxaas aragti. war ma ka haysaa Somali Premier League hadduu bilaamayo iyo xiriirka wax ma ka soo sheegin? maya bro waxa waaye arrimahaas war ma ka hayo weli, laakiin waa sugeynaa insha allah. laakiin waxa uu la dhahay bacda ramadaan waa camal. insha allah. horta hore ciyaartooy xulashada horta hore ciyaaryahan ma laho macalin aan lahayn iyo staafkiisa. marka hadduu adiga oo macalin kula soo xiriiray iyo dhacdo inay reason bedelo bilaa sabab la'aan adoo training marin, dooqa macalinka ciyaartooyda ku xulan karo inuu ka warqabo. macalinka inta badan ciyaartooyda ma arkin, ciyaartooyda inta badan loo keeno intuu la socdo mehe oo fiirsado mehe, laakiin ciyaartooyda gudaha ma arkin ciyaartooyda banaankaba. marka macalin oo xulashada horta hore ciyaaryahan maantay oo ciyaartooyda gudaha qof walba oo micnaha oo qaranka matalaya qof macnaha maanta national teamkiisa oo dheelaya qof kasoo horjeesanaya ma jirto. laakiin adoo micnaha oo lagu dhahayo waa mudan tahay oo training aadan marin haddii lagu dhaho micnaha waa lagu cunay bilaa reason la'aan, micnaha waa dareemaysaa noqonaysa bro. waxa xasuusanaysaa wixii ka dhacay Djibouti xasuusanaysaa. marka adi at least xataa dooqa macalinka haddaad noqon weyso waa ku qanci. maahan hadda Lingard camal tusaale West Ham oo performance fiican kusoo suubiyey, xulka waa laga tegay. soo marka muhiimadda ciyaartooy waaweyn xulka waa laga tagaa, laakiin reason looga tagaa. bilaa reason la'aan markii lagaaga tago nafsadaada ma qanci kartid. wallahi isbedelka horta wuxuu ku imaanaa aniga horta hore haddaa isbedel waxyaalo badan oo muhiim ah dadka ii waaya aragsan oo xiriir ku jiro, wax walba indhaha way ka arkoyaan oo u baahan in la bedelo. laakiin muhiimadda aan leeyahay micnaha inay wadanka gudaha oo liiga oo isbedel lagu soo biyo, because wadan walba oo micnaha waxaa awood u yeelay liiga gudaha. marka liiga hadduu quruxsan yahay ciyaartooy badanaa soo baxayso, laakiin liiga oo gudaha ah markii oo ciyaartooydii inta badan ay ka tagayaan ay wadamo kale usii socdaan, liiga gudaha ma qurxoonaanayo. marka waxaa dhihi lahaa liiga in la qurxiyo oo lagu dadaalo micnaha inuu liiga awood leh oo u yahay. macalinka asaa ila soo xiriiray, macalinka ma la hadli karay because ana aqoon oo saaid iyo ma laho, ma isla shaqeyn. haddaa isla shaqeynayn waxay ahaaleed way la soo hadlay kabacdina ma sii raadin baan. bro ani Soomaali ah fahantay maahan haddii liiga tagay inaan Soomaalinimada ka baxayo. marka mar walbo aan Soomaali ah, laakiin micnaha waxaa ka hadlayo micnaha qaranka inuu isbedel imaado, xulashada oo macalinka loo fargeliyo oo faraha loo geliyo oo macalinkii staafkiisa in loo daayo. boos macalinka markuu imaado wadanka Soomaaliya imaana liigiyo arkaa adigu dooqiisa noqonay, haddana waa la faragelinaa. marka dhibaatada ugu badan ka hadlayo ani taas waaye. laakiin Soomaaliya ahay wadankayga waa jeclahay, national team hadduu guulo gaaro baleeyar ahaan way saaciday aniga. micnaha ciyaartooyda localka iyo gudaha waa hal ciyaartooy waaye oo matalaya national team. anigu uma arkin inay isku baxaan, because ciyaartooyda national teamka waxa waa wada jir Soomaali waa, laakiin inay isku baxaan oo menis oo la iska hor keeno waxay u arkayaan dad cadow inay isla yihiin. marka ani fikrad ahaanteeda micnaha wax ila fiican ma in ciyaartooy local ay ciyaartooy qurbi joog inay isku baxaan, micnaha dad cadow isku arkayaan. waa horta mar walba aad kubadda dheelaysid way imaanay inaan ii jabtid, laakiin hadafkaaga iyo rajadaada maahan micnaha inaa ku noqoto micnaha hadaf la'aan inaad noqotid, inaa hore usii socotid. maanta haddii noqon weysay beriya imaanay wax ka fiican. marka waxaa leeyahay qof walbo oo jecel inuu kubadda heer ka gaaro yuuna jabin, horaa u socdo, wax walba isbedel wanaagsan u imaan doonaan. marka hadda national teamka hadda sidoo hormo isbedel ku imaado, ciyaartooy fiican ay imaanayaan oo quality leh. marka waxa waaye ciyaartooy quality haddii wadanka imaadaan oo ciyaartooy gudahana lagu daro, waxaa imaanayso wadan oo micnaha markii banaanka loo baxo ciyaartooydan professionalka ah ciyaartooydan gudaha haddii micnaha isla shaqeeyaan in ciyaartooy gudahana la arko la gato, waxaasaa imaanaya yaalni jibin marka hore loo socdo.
tore national team ku weynaa micnaha ay si jirinbo micnaha training sax la siin youth training marka ku weynaa waa micnaha laga warqabinbo waxa u maleeyo ku yar dadka inta badan wax badan ay fahansanina jiro qaranka micnaha anina hadaa hadlo qaranka inaa buuq ku furaayo maaho micnaha waxa jiro xaqiiqda ah inuu ciyaartooyda ka hadlo muhiim waaye dadka oo dhageysanaya la hadlaa soo marka muhiimada hadaa ciyaaryahan tahay ogaanay adiga laakiin hadaa qof oo waxba ogeyn oo aqligiisa oo micnaha wax fahansaneen hadaa tahay wax ma fahmaysid marka waxa la taageerayaasha ani Soomaali ma nacibi Soomaali guul gaar waa jeclahay Soomaaliya ahay Soomaali liiga ka ciyaara marka waxyaalaha jiro aan ka hadlooyo dadka is fahansaneen xaro inaan fahansiyo hawa ciyaaryahan walba wuxuu ku hamiyaa inuu qarankiisa matalo laakiin ciyaaryahan qarankiisa markuu matalayo reason uu ku matala haduu mataleen reason uu ku matala marka waxa la marka dadka wax fahmeenin inaa intaas fahantiin marka intaas ugu dar laa bro dada ciiso qoraya bixi ee qurba joog baa ma ka xunta that's waxa ku weydiiyay way su'aasha qaranka qurba joog iyo Soomaali ma la kala laho qurba joog dadka waxay fahansaneen intaas أنا dad badan ma soo baranay bro oo casaan kamid ah sanad kamid liibaanka kamid yahay micnaha ma kala nin ajaanib Soomaali aslan ahaan ay luqada ku hadalna dadka waxay fahmi laayeen ma ho micnaha in dadkaas necebna meesha ka hadloonana ma ciyaartooyas inaa haysan anaga maamulka oo micnaha oo wax wada anaga wax ka tabanuna ciyaartooy ahaan ku jiro صح marka intaas dadka fahmi laayeen qurba joog Soomaali asalnaan Soomaali lacab jirto ma jirto marka dadka way u qaslisiyay walahi bro aad u maasanta insha Allah waxa mar walba waxaan rajeynaynaa wadankeena inuu guul gaaro micna Soomaaliya hadaan guul muhiim noo yahay صح